عدني محنتي وقرا المشكلة ذا لقى ما يدحمه مقاعي شرفتيو ما موسير يلايو عدني محنتي سنتك من صومر تمسح إلهو سنتك من صومر تمسح إلهو عين مروضة إلا وين مروضة إلا وين سنتك من صومر تمسح إلهو سنتك من صومر تمسح إلهو عين مروضة إلا وين مروضة إلا وين يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي مبارك كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير يا أهلي يا شعبي يا أهلي يا شعبي ونكسر كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير ومالين فرح ومسلمين تعيدوا كسبات يدا فباقي يومين سما ليسوا مسوا ومالين فرح ومسلمين تعيدوا كسبات يدا فباقي يومين سما ليسوا مسوا مساكين تقرأتو معصيو أبوه مساكين تقرأتو معصيو أبوه آي وذا محسوين بنتي ود محسوين مساكين تقرأتو معصيو أبوه مساكين تقرأتو معصيو أبوه آي وذا محسوين بنتي ود محسوين يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داودياشي ذي قيمتي قدرينتا نقمضة مالكتو دافها الدنيا ذا كالسو كنتين داودي الكسو ودواد برامج قارودين كديارنا مناسبة عيد الفطر يسيدي لوغا عيد مقالة برعا حرمتا قبل كتقدار داودي الواكن برامج كي وردم يستيران إداو شابون الرحيم نستعين على أمور الدنيا والدين halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa munaasabada ciida ee barakeysan horta waxaan u ducaynayaa ummadda reer Soomaaliland si ay u dhan tahay guud ahaan ummadda islaamka ah waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland
oo ummadda reer Soomaaliland kula ciidaya dalka Great Britain isaga iyo marwadiisa waxaan u dirayaa hambaliyada ciida madaxweyne ku-xigeenka dhammaanba golayaasha qaranka iyo ummadda guud ahaanba ehliyadayda hooyaday ubadkayga iyo asxaabtayba waxaan leeyahay كل عام وانتم بخير لهاي سنة كسنة كيس هاي نو غارسيو باش إيه برواقو ومدة الصومال لأنه وحن لا هاي سوى ناكسن بي يعني نوضع عوي يجي إلى الفكر دو إلى هاي عبادة دي يو واجبات كلا نقول هاي نقودنينا هاي نقا أقبلو وحن كبورنا يعني نقول عشان نبد كليدينا أدون كوارك تاو حكا تاغن waxa la ciidi kara oo la cibaadeysan kara oo la ganacsan kara oo wax la baran kara in nabadgelyo haysta intaaba heli kara waxaan leeyahay waa qaali nabadgelyadu aan ilaashano wax walba oo muxuu ahaa khilaaf keeni karaan iska saaro qolada miidiina waxaan leeyahay waxa ku dadaashaan in dadka wacyi gelisaan سو ناكسن محو هاي أد تصاليسان وايو ميديو حويان و أود أفراد باليران هدي أيجو حمادان ومدرو حمانة صوبته ورقلدان هذا الشيءان أحول بوا قلدمية وحن لا يدين كانوا حكود داشان ومدينة وعجلسان وكوا عجلسان محي أو حبرشة وناجه caafimaadka ka shaqeysaan deegaanka ka shaqeysaan wax beerashada iyo wax qabsashada ka shaqeysaan oo dadka ku boorisaan oo barnaamijyadiinu aanay u badan kuwa siyaasi ah kuwa arrimaha bulshada ee wax qabsashada aad ugu dadaashaan inaad muxuu ahaa aad kaalin weyn oo mugla ka siisaan barnaamijyadiina waan aad iyo aadna waxaan u hambaleynayaa ragga halkan ugu soo booqday ee ka socda Ixtiraaf News oo ah ميديا عردنا وصوكرية وحنا له أو حرق يريدو دايرو فرعون أي قاعد كوهيان وحنا دلنا يكون الدور ونكسن كقاطع وتوب ونكسن قاطع وحيد ذلك يدك قدنا أنت بدن عبارة سلام مش جينا أهرمها بالشدة وبضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال. عيد ونكسن وحنا نبليو مناسبة عيد أو جودهان عالم الإسلامي قارهان بعض قوة شاف كالصومالية خاصة ددوينها جمهورية الصومال الآن جودة يد بدون ملك استوى يشوفان وحنا لا هاي عيد مبارك عيدنا waxaan leeyahay ku gaara bashbashiyo barwaaqo ilaahayna waxa ka rajaynayaa horumarka inuu inooga sii kordhiyo inta imika uu yahay ee barwaaqada ah waxaan rajaynayaa in ilaahay isaga awood leh uu naga aqbali doono baryada iyo ducada waayo isaga ina amray oo ina yiri ibarya waan idinka ajiibi doonaa waxaan leeyahay Somaliland bil kasta iyo sanad kasta iyo mar kasta iyo waqti kasta waxa uu dareemayaa qofka caqliga iyo garaadka lihi horumarka iyo tadawurka ka socda dhinaca ay u tahayba hadday dhinaca waxbarashada tahay hadday dhinaca dhaqaalaha tahay hadday dhinaca maamulka tahay hadday dhinaca amniga tahay beesha caalamkana runtii waxaan aad iyo aad munaasabadda ciidda awgeed aan ka rajaynayaa oo aan leeyahay waa ku bakaysheen oo waa hagrateen ictiraafkii jamhuuriyadda Somaliland runtii waanu buuxinay dhammaan shuruudihii looga baahnaa
dowladnimo iyagana waxaan ka codsanayaa inay ku degdegaan oo ay hadday hore dib uga dhaceen ay iminka u diyaargaroobaan sida ay u aqoonsan lahayn jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dowladaha jaarka iyo kuwa fogiba ay ka dherigsan yihiin inaynu buuxinay wixii shuruud looga baahnaa ee xukuumad lagu aqoonsan lahaa iyadoo aan runtii rajaynayo shacbigan inuu isku tashaday dhibaato badan oo soo martay kadib dhiig badan oo daatay maantana waa dareemaysaan inaynaan uga ekeen dal burburay dhulkii aanu ku garaadsanay guryaha gaagaaban ka dhisnaayeen maanta mid walba waxa ka dhisan sare dhaadheer waa wax Ilaahay loogu mahadnaqaa aqoontii iyo tiknoolajigii iyo waxbarashadii iyo dhaqaalihii intuba sare u kacaya oo ay sii socdaan oo aad bil walba dareemaysaa sanad walba dareemaysaa taana waxaan leeyahay runtii cidda aan bini aadamka u mahadnaqini ilaahayna uma mahadnaqdaan leeyahay waxaan leeyahay xukuumaddan maanta jirtaa markii ay talada qabatay ee uu hormuudka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aynu dareemaynay halkii waxa ay udub kaga tagtay maantana waa arkaysaan halka ay wax waliba marayaan waxay dawladda qabsadaan waxa ugu adag waa wadooyinka horumar dal waxyaabo ku xidhay wadooyinka dekedaaya baa kamid ah madaarada iyo xilal maala madaaradii sida loo qurxiyo waa aragta dekeda sida maca amnigeedii iyo securitykeedii loo sugay waa aragtaan wax looga bedelay wadooyinkiina waa aragtaan wadadii ugu dheereed oo ceeri gaaba maalin dhaweyd ayaa qolayga soo hadashay Oodweyne waxay weeraan burcaan ku soo soconaa wax ka yar qadar saacada ay igu yimaadeen halkii ka kicin maxay sidee baan ku waxay waxaan isee gaari yar oo noocan loo yaqaan noohada ee yaryar gaagaabana alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu ku yiri la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum in cadaabi la shadiid agoodi adag wixii adag weey waxaan leeyahay wadadii balligubad la aragta tiisa laxlay waa aragta dawgii cadaa waa aragta booramiya hargeysa waa aragta waqtigii loo socon jiray qofku intuu boorama ka soo quraacdo inuu burca ka qadeeyay imika loo badayo halka saaxiibada iyo ahbaabta iyo dadka shaqada wada lahaa ay inta ku sheekaystaan dib u carraabaan hadan tii ceeri gaabana waa aragtaa maalin dhaweyd baan maray alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa dareemaysay qaabka ay wadadu u socoto halkan magaalo yar ee wadada halka looga leexdaan tagay cabaar baan raacay mar gaaraan u timirna waan lugeeyay kaliday baan ahaan iyo familygeyga ilaahay baan u mahadnaqay yaani qaabka ay u socdaan taana runtii waxa maada koowaad leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud oo runtii la oran karo isaga hanaanka horumarineed jeexay waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland dadku uu tirabal badan yahay ujeedadeena weyn iyo goolkeenu waxa weeye waryaayna dhaqi kara in wadi kara wax noo qaban kara taasaan hadalka gundhiga uga dhigayaa haddaan dib ugu soo noqdo gobolkan aan odagiisii labaad ahay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa amniga horumarka iyo sida ilaahay u barwaaqeeyay يعني قف كستو عقل اللي هو كحمد النقيا حنا الله هاي بني آدم تبشم وايو إلهي مو يعني واحد ما يسترني ما جيران إلهي بأمر كيسو يكون بين الكاف والنون فيكون روح الله هاي هرمر باك السعودة بل دبوا إيجا قريه نوبت كتشوجا لبدي قريه يجيبوا متبع إنترنت كوحرين يا أولاد ديري iyagoo online ay halka ku jiraan waa arkaysaan aqoontu say u socoto ardayda dugsiyada waa arkaysaan dhismo sidoo uu kordhayo waa arkaysaan horumarka ka socda waa dareemaysaa 3-4 qof baa ii sheegay bisha gudaheeda qof waliba uu leeyahay riigna waan taagaya cagafna waan soo kordhiyay
ujeeddadu waxa weeyaan dadka horumarkooda halku marayo inuu qof waliba mashruuc yar oo wax ku rito wax kala soo baxo oo uu beertuu kaga kaaftoomo wixii dabadda ka imanayay ayaa maanta aad dareemaysaa burcano ama togdheer ama burco waa caasimaddii labaad ee qaranka jamhuuriyadda somalilan runtii horumar ballaadhan baa ka socda dhinaca amniguna waa 100% ciidamada ku shaqada leh iyo dhammaan laamaha dawladdana waan u mahadnaqayaa khaasatan hay-adaha amniga oo si aad iyo aad u sarraysa runtii u suga amniga wax ilaahay loogu mahadnaqana weeye waxaan intaa ku darayaa oo aan leeyahay cid kasta waa maalin ciideed hadday qolo tahay hadday qabiil tahay hadday jifo tahay hadday beel tahay hadday laba qof tahay nin iyo ooridiisiina ku dheh waxaan ka codsanayaa dadweynahan odayga u ahay in laysa saamaxo waayo tasaamuxa ayaa wax walba ka khayr badan cunfiga iyo colaadda iyo uurxumada iyo waxaa ma taraan waxaan leeyahay aniga oo odaygii labaad ee gobolkaa kuna hadlaya magacii gobolka horta xukaamtiinnii baanu leenna saamaxa waana khaldamaynaa waana asiibaynaa waa saxmaynaa ciddii wax naga tirsataa waxaanu leenahay itaalkayga dadaalaanu isleena hortana saamaxa waxaan kaloo leeyahay guud ahaan waxaan anigu iga cafiya cid kasta oo ay waxna kala galeen oo aan wax u tirinayay waxaan kaloo raacinayaa cid kastoo wax isku haysa hadday beela tahay hadday qoysas tahay hadday jifooyin tahay in cagta dhulka loo dhigo la sugo amniga xukuumadda la taageero la eego danta ummaddu maxay tahay ee aan danta shakhsigaa qura la eegin la iska ilaaliyo reer togdheerow burla duul iyo caatifad baa laynagu tilmaamaaye inaynu waayeelnimo iyo waxgaradnimo muujinno oo waayeelku uu guntado oo sidaa iminkaba noola shaqeeyaan ay si ka sii fiican ay noola shaqeeyaan dhaliishayada naloo sheego nala toosiyo nalala taliyo intaanu meesha joogno diyaar baanuna iyo bahda ictiraaf newsba waxaan leeyahay hambalyo ciiddeedana waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqa ku gaadhaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa saxafiyiinta madaxa bannaan ee ay ka mid yihiin ictiraaf news wabilaahi towfiiq waxaan ummadda reer somalilan iyo gaar ahaan gobolka reer togdheer waxaan nii hambalyaa munaasabadda ciidda ayaan leenahay ciid wanaagsan dhammaantiinna ilaahay waxay nagu gaarsiiya bisheeda farxad iyo faanfaan iyo raynrayn iniguna waad mahadsantihiin kulli caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka togdheer waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo ku ciiday sanadkiisa ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu inaga aqbalo cibaadadii inagu faryeelay ee aynu sida nabadgelyada u gudannay waxaan leenahay dadweynaha islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan reer somalilan waxaan leenahay bashbashay barwaaqo ku ciida sanadkiisana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa guul nabadgelyo iyo ictiraaf kulli caam wa antum bikhayr dhammaan dadweynaha reer somalilan meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ku ciida caafimaad ku ciida nabadgelyo ku ciida bashbash iyo barwaaqo ciiddeedana ilaahay nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay nagu gaadhsiiyo ilaahay waxaan ka baryayaa caafimaad iyo barwaaqada ina siiyey teeda inuu takalna nagu gaarsiiyo biidnillaahi tacaala dhammaan wixii wajigayga garanay waa salaamay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu assalaamu calaa rasuulillah kulli aan waantu biqayb dhammaan shacbiga muslimiinta ah meel kastoo joogaan gaar ahaan shacbi weynaha reer somalilan waxaan ku tahliyadaynayaa munaasabadda ciidulfitriga waxaan leeyahay ilaahay hanaga aqbalo camalkii saalixa aynu soo gudanay bishii barakaysnayd ilaahayna inagu gaadhsiiyo bisheeda nabadgelyo cisi iyo horumar aad baan ugu hambalyeynaya guud ahaan shacbiga reer somalilan iyo gobolka togdheer aad baan idin salaam assalaamu calaykum waraxmatullaah daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkan ugu talagalnay isla markaasina aan ugu dabaaldegayna munaasabadda ciidulfitriga waxaan hadda ku sugannahay xarunta shirkadda daabacadda xayeysiisyada ee Sagal Jet halkan waxaa fadhiya gudoomiyaha shirkadda Sagal Jet Maxamed Daahir Cali in ugu horeyntiiba gudoomiye ku soo dhawow dareenkaaga munaasabadda ciida assalaamu calaykum aad baan u dhawahay aad baan idin salaamayaa maanta waa maalin ciida waa maalin farxadeed dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogtaan waxaan leeyahay ku ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta Soomaaliya caalamka kalaba maanta waxaan hambalyo halkan uga dirayaa ummadda
soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana somalilan waxaan leeyahay ilaahay ha idinku gaadhsiiyo sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo iyo amni lagu sugan yahay ilaahay ha inoo siyaadiyo amnigeenna haddaynu nahay somalilan ilaahayna ha u keeno amni walaalaheen soomaaliyeed dhammaan ummadda muslimiintana ilaahay ha ka dhigo dad xasiloon kuwa ilaahay cadow ku salliday maanta sida qasa oo kalena ilaahay ha ku dulqaado ayaan leeyahay waxaan hambalyo gaara u dirayaa waalidiintay aabbahay iyo hooyaday waxaan hambalyo kale u dirayaa dhammaan asxaabtayda meel kastay joogaanba iyo qaraabadayda xaaskayga ciyaalkayga dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan iyo farxad waxaan maanta halkan u soo jeedinaya hambalyo ku saabsan ciidda fitriga maadaama rabaanta ay soo dhammaatay waxaan leeyahay dhammaan ummadaha islaamka meel kastay joogaan kullu caam waanta bakhayr gaar ahaan ummadda reer somalilan dibadiyo gudawaanu waxaan leeyahay kullu caam waanta bakhayr ilaahay waajibaadkaa soo gelateen ee faralka ahaa ee ciidda rabadaan karaamadeedii iyo khayrkeeda meel hayna siiyo dalkii dadkana ha inoo barakeeyo waxaan kaloo mar labaad u hambalyeynayaa nayuus ictiraaf oo runtii aan nayuus dhallinyarada ah ku habboon munaasibna ku ah marxalad loo baahnaa ku soo biiray saxaafadda waxaan leeyahay waxaan ilahay idinka baryayaa noqotaan kuwii taabagal noqda ee meel wanaagsan kaga soo hadha taariikhda somalilan waxaan dadweynaha reer somalilan leeyahay ciidda barakadeedu wayna helna waxaa ku dartaan sidii nidaamkan xole dalka ka jira ay isaga ridi lahaydeen idinkoon dhibina aanay dhicin cidina aanay ku dhiman xodkiinana aa ugu ridi lahaydana ku keenteen taan idinku burinaya bismillahi raxmaan raxiim hambalyo ciid maarig waxaa leeyahay dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxaan hambalyo uga dirayaa ciid alfitriga awgeed ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda reer somalilan waxaan leeyahay hambalyo ciiddeeda ku gaara bashbash barwaaqo anigoo ah khadar cali xirsi waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaan ku salaamayaa munaasabadda ciidda waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkaas sanadkiisana waxaan ilaahay idinka rajaynayaa in ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo caafimaad inagu gaadhsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani master cabdiraxmaan ciro waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan eheladayda oo dhan meel kastoo ay kala joogaan magacayga waxa la ibraahim maxamed muuse yuusuf waxaan halkan bulshada somalilan dhammaanteed ugu hambalyeynayaa ciidda bisha rabadaan ee ciidal fitriga waxaan leeyahay caafimaad ku ciida ilaahay acmaashii aad soo qabateen ha idinka aqbalo dhammaanteenba sidoo kale waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo ku maqan ingiriiska allaha caafiya ayaan leenahay waxa la yidhaha arrimo caafimaad buu tegeye waxaa kaloo halkan uga dirayaa hambalyo madaxweyne ku-xigeenka marwada koowaad marwada labaad dhammaan muslimiinta dalka somalilan u dhalatay iyo guud ahaan soomaalidaba waxaan si khaasa ugu dirayaa hambalyo ciideed hooyaday macaan tariig xasan guuleed aabbahay maxamed muuse yuusuf xaaskayga xamde siciid xuseen carruurtaan walaalaan nahay iyo inanteeda mushtaaq aad iyo aad baad mahadsantihi كل عام وأنتم بالخير صالح الأعمال تقبل الله منا ومنكم حلنا دمان مد المسلمين وحلنا لنا هاي عيد مبارك إلهي هنا يقبل صوم كان صومي عبادة بسرنا إلهي هنا وافجيو وحلنا مد المسلمين دمان ميل تشوفان صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم كل عام وأنتم بخير دمان مد الإسلام كوحنا هاي ملك تشوفتان كل عام وأنتم بخير دمان فاميلي أنت مقالك قرنا سيجنا وحنا هاي كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم الله وبركاته كل عام وأنتم بخير عيد مبارك waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku dhaqayn waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan waxa weeye ciid aad iyo aad loogu wanaagsan haddana dadweynaha ku dhaqan magaalada burco anigoo magacayga leeyahay axmed cabdullaahi sulub waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku nool yihiin calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaana shacbiga somalilan aad iyo aad ayaanu hambaliynayaa ciid mubaarak waan salaamayaa marka hore ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waanta caamal bakhayr ilaahay camalkii saalaxa aynu soo tukanahay naga aqbaro oday dhalinyarada TV-gana aad iyo aad bay mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa jamhuuriyadda somalilan dadka ku nool waxaan leeyahay waanta caamal bakhayr meel ciid mubaarak
بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah sidooha gobolada bari ee macdanta iyo tamarta Cabdiraxmaan Umar Suuf waxaan salaamayaa dhammaan wixii muuqayga iyo magacaygaba yaqaana waxaan salaamayaa marka ugu horeysa xaaskayga iyo hooyada iyo aabahay assalaamu calaykum waraxmatullahi ciidan maanta aynu joogno waa ciid al-fitri وهذا وحن مركا كهمبريين دمان عالم المسلمين مركز دو أي جوبان إلهينا وحن نقبري عالم المسلمين نقول عالم كريستان وحن ساجر سنة هاي هذي الله يدمو إلى كريستان يهودين اللي كريستو حسنا إلى هاي يجنا بس دقيقة يجنا دين هذا وفرية مركز الإسلام كل باتيسين وحن همبريين يشرف يفرحت يكرموا ويرجعنا عالم المسلمين قارهان مدخل سومالا مركز تجوبان ما صحفتنا هذا المسلمين كان الاعتراف بإسلام الجليل نقدان قلدي كل سنة إن سومالا الاعتراف كي أي نقدان بقلدي اعتراف كل سنة ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد ugu horeyn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye marwadiisa golaha qaranka dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan kull caam wa antum bikhayr waxaan jecelahay in aan ummadda islaamka meel ay joogaanba ugu duceeyo in ilaahay uu ka aqbalo camalkii ay soo hayeen 29 casho ilaahay inoogu naxariisto inagana dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala qoorahooda uu ka xoreeyo uu ka xoreeyo ma garanaysaa naarta uu ka xoreeyo bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa maanta aabaha iyo hooyaday iyo dadka muslimiinta waxaan kullu caam wa antum bikhayr dadka muslimiinta si fiican bay u yideen waxaan u rajaynayaa khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ya عيد مبارك نعيم أحمد عبد الله ماذا عيد مبارك عيد مبارك ذلك مسلمين تا أردن ويا مجال بروح نكسر الله الرحيم مركل راح السلام يا بهاي هو يدي مركل بعد راح السلام يا أدر هاي يا شيء مركل بعد راح السلام يا راح السلام يا أبي عشي يا عشي يا دير يا عشي السلام عليكم عيد مبارك مناسبة عيد الفطر أوجد وحنا أمة المسلمين تهودوا مرنا الصلاة فهني لا يقبل يا عفمات قبي عمر نسيو سنة كسنة اعترافي هرمركو قارنو وحنا كسلام يا مدحونا برود السومالان محمود أحمد سيلايو رئيس البرلمان كأهنا قدومية حسب ودنا عبد الرحمن الرو ولا قدومية ولا قرتي وحنا لنا هاي دمان مدحضة قرنكا عينك قرنكا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت هلكم وحنا كالسلام يا هو يدي يا عباهي هو يدي ولا يرحم قاعد اسمي يوسف اسمان يا عباهي ولا يرحم محمد يوسف محمد وحن سلام يا حبي راشي يا ولا الله يا أيدي بالسلام يا ذي شيء ما أنت وحن آدي وقف رحسنها إيدا ويدي يا باي وحن هويدي ولا رهاي صفية حسن ديرية أباي ولا رهاي عبد الله المرسلي وحن سلامي يا هورثي حن سلامي هورياشي أدرياشي وحن وقف رحسنها ما أنت الحمد لله إلهي نقول تلاقي ما أنت فرحة إيده الرحمن الرحيم أنا كما قاعد وحوي عبد الشكور هذا إبراهيم مع السلامة يا ولد يا باي كتب عيد مبارك تلك حورتشيني يقول فرحة فش براقو والكون بدأ مدحونا أحمد محمد سيلايو والسلام يا مرودي سام من ورس والسلام يا مدحونا كسماء والسلام يا رحمة الله وبركاته أما بعد أنا سلامي هو يدي يا أبا هي ولا لها يالكن شوكا يدي يا شيء يا هبر يا شيء
wixii muuqayga muuqaalka kana ciid mubaarak wassalaamu calaykum salaamaya shakhsiyan caa'iladeeda shakhsiyan hooyada iyo aabahay waxaan kala laga salaamayaa madaxweynaha maxamed siiraan iyo marwadiisa aamin waris waxaan leeyahay ciidan ciideeda bashweeye barwaaqo ku gaaro salaamay Soomaaliland oo dhan marka xigeenka waxaan salaamay hooyada iyo aabahay marka ku xigta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Siiraan iyo marwadiisa marka dad waxaan salaamay walaalahay oo dhan iyo ummadda muslimiinta oo dhan ugu horeyntii waxaan salaamay hooyada iyo aabahay marka dambana habrooyinka iyo eedooyinka iyo walaalahay ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid caafiya waxaan idhaa Naasir Axmed Bar waa u horeysay hooyada iyo aabahay waxaan salaamay walaalahay oo dhan iyo muslimiinta assalaamu calaykum ciid waan aabahay iyo walaalahay iyo dadka muslimiinta dhammaan assalaamu calaykum waxaan salaamay hooyada iyo aabahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka salaamayaa marka ugu horeysa shacabweynaha muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa reer Soomaaliland ciid wanaagsan oo aantum bikhayr ciid mubaarak marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ee sida sharafta leh u ciiday marxigaala waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda caruurtayda walaaladay dunida meel kasta kala joogaan oo ka faa'iideysanaya channelska nimka siisan aad iyo aad baan idin salaamayaa Itraaf News aad iyo aad baan mahadsantihiin kuna dadweynaha oraxda ka qaadaysan aad baan mahadsantihiin aad iyo aad baan u faraxsanahay ciidan aad lana bashir waqan garsiyo ya Ahmed daawadayaasheeda qiimeynta iyo qadarinta naga mudan ee daafaha dunida nagala jaanqaadayo gebiyaanba intaas ayaan ugu soo gabagabaynaynaa barnaamijka gaarka ayaan ugu talagalnay dabaaldega munaasabadda ciidul fitriga ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dabcan daawadayaal barnaamijka waxaa la socodsiinaya aniga oo Khalid Bakeele xagga kaamirada waa Cabdi Cabdilaahi Maxamed tan iyo tan ku kulmi doona daawadayaal barnaamijkan xiga waa bahda shabakada caalamiga ee Itraaf News oo idinkaga tagaysa ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr مساكين تقرأتو معصيو أبوه مساكين تقرأتو معصيو أبوه آي وذا محسوين بتقول محسوين مساكين تقرأتو معصيو أبوه مساكين تقرأتو معصيو أبوه آي وذا محسوين بتقول محسوين يا شعبي